السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مقام channel وحن تاجنا برتمها إسلي وحنا رواينا نوديو السؤال يرر وكم ده كبر اسكت المنطقة مثل الصومالية إني مارتق روح لي الصومالية تاي إن كلا وان ضد كلا مارتق كلا صار دونا هالكن يو شن قف وكم ده سبيرود أنت أنصو صار دونا وأيضا أي دوران دونا مدة وقور أحسن الله بركاته كسر مقام channel. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده وعليك مقعد إبراهيم نور إبراهيم كبر اسكت المنطقة روح لي الصومالية سده ورك تروح لي روح ساعة بقولك يورو قفت سنفانتي واحد روح ماشي كويس سنفان قرح دمها سنفانتي بس كيله سهل marka saacada qoftaas waxa dhaca magaca kanasto wax ay isku yeesan malahan iska nasta iska fariisto qofta afar qof asun iyo cabtay la afar qof seewarta waraan dartii toon gabdhaas uu caawin waa kuan jiga markii sheegay maanta marka qofta niyo wala isfaanisle marka afar qof maluha ma la arkay afar qof oo sindacad ayada sheegatay xasan ba sheegay anaba toona dhigi karaa way cabtay ha ma sha Allah sidee warta shantan qof sabrada meeshan kaaga muuqday qofka quraxsan isleedahay lambarada wala dooro shantan qof magacooda ma qalaqda magacada ay sheegay lambarada la ka dooro نمبردان نمبر 1 كلها نمبر 1 كلها قفت تمام انا اسفلنس انا نمبر 1 كلها قفت اسفلنس وحمي ماشي محمي كويس الله محاوت بطور له وعدا صاحي ودالنتا مقالك كنسو wax ka qurux badan ma ku buuxaan faanta mana idii waxada boqoradii macnaha oo qurux badan Afrika ay Madiino wax badan buuxa anaga ognaa luuq ku jiraan markaa meel iska nasada soo baxan hataa ma lagu arkay dadka qofkaas ay fiirnaan faanta على أصحابك داونس أصحابه عليه channel مقيس مقام channel سبسكرايب على صار لايك على صار كومنت على صار به شير على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو مقام channel مقعد أنا نجيبه نجيب سيدا ورتا قبل اسكت المانتي مس الصومالي مس قفت قلم وقرحسن والله صاحب gabadhaasi aad baan uga yaabay quraxdii isku sheegaysiisay tahay markaad aragto isku mid ma misleeda afar qof asun u cabtay qoftaas waxaan waxaas ma jiraan iyo waa qararac iyo beewi ma sha Allah maslax sidee warta afar shantan qof sabradan sidee ugu quraxsan isleeda waa yakun waa sidee warta isleeda ida ugu quraxsan wala raaynadan nasraabti doode نصرافت تون ما شاء الله سدوا مرلوات كسدوا مقام channel السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسدوا مقام channel مقعد عبد الله اللي ده برشو نكسن عبد الله إن سؤالك كذا كويدنا وحواي إن قبل سو شكتين تقرح لي مس الصومالي مارتي بس ده ورت قرح صرتم والله ورت قفت نفس أنت بيني وشكتي قبل ولا قبل قرح بدن فهمتي أنا قاعد مركا أنا ومرك أو صون إزلي قبل ولا هوري ما تقبرك سيقرح بدن مرك قبل نفس ده بيني وشكتي مركو حالي الله قبري بين نفس ده بين كدف عبد الله مثل هذا قبل أفر قفا سنو عبتي ما تا أنا ما أمينك رتمدس ما أنا أمينك ما أسكن دينك رتساني ما شاء الله عبد الله مركز تليفون كنا رواينا أفر قبل كاتس إن قبلنا بلان وعشان بل سيدا ورت إن متى قرح سنة سلادة بل صفي عفيري والله قبلها رسم الروس محل قبلنا رحم الروس قبلنا يعني هذا دوقنا لا رسم الروس دوقنا إن شاء الله رحم الروس أوقات أيضا وكم التاي وجدت ما شاء الله قبلنا قرح بدنا دوقي دنك هالو عشان ده قبل رحم الروس كتار ما شاء الله ما حد كل هذا تذكر دعوانا يا صاحبي هاي سبسكرايب كومنت لايك نوعاوي أصحابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو مقام channel مقعد magacayga dumar caawiye dumar caawiye ma sha Allah dumar caawiye waxaan ku weydiinayaa su'aasha koowaad waxa waaye sidee warta gabadha isu sheegtay Miss Soomaali ama quruxleyda Soomaaliya bal quruxda gabadhaas ku taageersan tahay sidee warta quruxleyda quraxan dhigi karo ma aha gabadhaas waa qurux badan ma sha Allah ma dhigi karo laakiin qofka markuu isku kalsoon yahay kalsoonidiisa horta quruxda lagu sheegay qalbiga waaye qofka quruxda lagu sheegay waa qalbiga qofka duu mar isku kalsoon yahay isaga isla quruxsan faanti bilaadanka qofka isla quruxsan laakiin aniga ma dhigi karo qurux lagu raacay leedahay gabadhaas ama style leedahay ma dhigi karo misleeda afar qof sunu cabta qoftaas afar iska daa qof ma dhigi karo sunu wacbi ما شاء الله بل تليفونك إلى فيري شنطان قف متى قروح لو دورنا لاد مثلا إذا أو قروح صعب لاد قبلها زمان كل واحد هاي أنا كل ماشين سوشيال ميديا قبلها عارك ياتا قبل أو قروح وصل ماريش أديك راني ماريش بيوت لديك راه واحد كلا أديك راه قروحين ملهن ما شاء الله ماشين كل كوجرتها في كوجرتها لما برتوا هاي واركا يا ما شاء الله قول أدو قروح بدن حتى أن جعلان لا إن الله كل موايو ما شاء الله قول أدو تاجر واي وأن جعلان إن الله كل ما وقت لقاته
waa jeclahay maasha Allah waa u gudbinayna muuqaalka insha Allah Miss Somali noo ku jirta waa u jeeda marka iga cun qofta iga cun qofta maxaa leedahay asxaabta ku daawanaysa liilaw asxaabtayda maxaa leeyahay janaalkan inta asxaabta ku xiran welcome dadkii ku xirneen waxaan leenahay soo dhawaada subscribe-ka like comment hadii kulli waan ku dhimanaano asxaabta one love assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhawo maqaam jiran magacayga brother Caluur Cabdismaan gabadha isku tilmaantay quruxleeda Soomaaliya Mrs Somali sidee u aragtay quruxdeeda mise isku tilmaantay brother dabcan walaa gabadhaas aad iyo aad qurux badan tahay marka aniga dabcan way soo jiidatay in aad iyo aad qurux badan ay leedahay blueskaya dabcan anaga hanteed waa qaadan lahayd gabadhaas door cilo uma tagleen ما شاء الله waxay tiri afar qof asun iyo cabta mas'alada afar qof asun ma waxa suuqa isgelinaysa laakiin afar ruux inay sunu cabaysan ilaa maaha dabcan laakiin quruxdeeda ka soo aad iyo aad quruxsan tahay gabadhaas ما شاء الله shantan qof aan sawirradooda hayo sidee u quruxsan isleeda lambar ku qoran barfiir brother kulli aad bay quruxsan laakiin gabadha quruxdiis ku sheegtaa qaadan lahayd lam 5 ida qaadan lahayd ما شاء الله soo dhaw maqaam janal asxaabtu daawanaysa maxaa leedahay asxaabta daawanaysa waxaan dhihi lahaa brotherkayga hala soo dhawaada asxaabta raggan minaha taageernimada la siiyo hala taageero loo kala kiciyo YouTube waleedin miya ma sha Allah halo shaqare halo subscribe gare dabcan ayadu wata asxaabta assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw maqaam janal magaca wa alaykum asalaam magacaygu waa Cabdixakiin qoftan isku tilmaantay quruxleeda Soomaaliya sidee u aragtaa wallahi de waxa la yiri nin walba qumaniisa qoorta ugu jira de qof walbana wuxuu aaminsan yahay isagu in lagu ixtiraamo waa muhiim laakiin de dadka waxa weeyaan iyadu aragtidooda un bay ka hadashay marka de qofka aragtidiisana isaga u madax banaan laakiin dad badan oo ka qurux badan baa jira aaminsanahay waxay dhahay afar qof asun iyo cabta ma ku raacsan afarta qof isleeda way ka wallahi de cidii qof bini aadan oo la siman oo bini aadan qof daraadis u cabaysa waa qof markii hore diin iyo aqli ku filan aan lahayn weey marka ma xaqiijin karno inagu laakiin shantan gabdhood isleeda way quruxsan tahay lambarada kala dooran lambarada ku qoran shantan soo maaha aan waxa miisanahay inay tan ugu qurux badan tahay taas ugu qurux fikradeeda aaminsanahay ma sha Allah ay soo dhaw marad maqaam channel asxaabtu daawanaysa maxaa leedahay asxaabta waxaan leeyahay channelkan waa channel wax badan laga faa'iideeyo waxyaalo badan oo dhaqanka iyo hidaha iyo aqoonta iyo cilmiga iyo diiniyan iyo maadiyanba intaba laga soo gudbiyo dhalinyaro firfircoon oo hawlwadeennana way ka shaqeeyaan ha lagu xirnaado leegta iyo followda iyo sheertana hala la daba joogo ma sha Allah soo dhaw mar waa dhowhay barnaamijyo kale oo ka qayb gali doona insha Allah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw maqaam channel walaal adiga waraale magacaaga wa alaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Mukhtaar Axmed Cabdullaahi oo reer Isliya Mukhtaar waxaan ku weydiinayaa gabadha bariyan isku sheegtay inay tahay gabadha ugu quruxsan mudug bal ma ku raacsan tahay inay quruxleeda mudug tahay misna wallahi waan arkay gabadhaas oo social media waan ku arkay gabadha tiraahday reer galmudug aniga ugu quruxsan oo afar nin baa dartayda sun u cabtay waan arkay waa social media waan ku arkay ma sha Allah horta gabdhaha Soomaalida dhan way quruxsan yihiin laakiin qof sida u soo bareero oo bulshada soo hor istaago oo haddana ku maxal jiray ku faantama ma aragan dhihi karaa marka waa ma sha Allah way quruxsan tahay waa ku raacsanahay Allah maaragtay ha u barakeeyo laakiin in la saasa u soo bareerto xogaa oo ay la soo adkaato ayaan leeyahay waa laga quruxsana laakiin waa quruxsan tahay ma sha Allah kulli quruxda qortay mid kale misleeda afar qof maarta sunu cabtay sida iyada afkeeda ku sheegtay misleeda ma ku raacsan tahay intaas horta jacaylku qalbigu ka yimaada waa wax qalbiga ka yimaado sida nacaybka uu qalbiga uga yimaado marka waa dhici kartaa inkastoo hadaanan goobjoog ahayn oo hadda gurceel meesha ay ku sheegtay ay ka dhacday maaragtay arinta inay ahayd laakiin sidaan aaminsanahay wax dhici kara waaye saan isleeyahay ma sha Allah waxaan rabaa afartan hablood inaad kala saartay mid ugu quruxsan iyadana ay ka mid tahay marka bal gabdhahan si fiican u fiiri mid ugu quruxsan isleedahay
sawiradan hadda aad tusida way ku jirtaa macnaha ayada way ku jirtaa kamid way tahay bal si fiican fiir afartan gabdhood ay kamid tahay okay ma sha Allah horta waxa weeye kalama liitaan kalama dhacaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogan wada quruxsan yihiin ma sha Allah Allah barakeeyo laakiin hadii ay tahay su'aasha ka jawaab dabcan waxaan isleeyahay taasaa ugu quruxsan ayadana waan ka dhex aragtaa meesha ayada waan arkaa waa gabadhaas dharka buluuga ah wadato geeska jirta sidaan aaminsanahay haddaanan qaldarayn maasha Allah iyada way marka kulli waa soo daynayna insha Allah nala soco muqaam channel laga daawanaysa insha Allah waadna ku mahadsantahay muqaam channel waa yahay walaal waa dhawahay aad baan u mahadsantiin horu socon ku leeyahay asxaabtu daawanaysa maxaa leedahay asxaabtu daawanaysa waxaan leeyahay aad baa u salaamantiin ninka dhalinyarada hala dhiirigeliyo muqaam channel subscribe-ta iyo wixii lagu yaqaanay social media in lagu kala kiciyo ha loo sameeyo horu socod ha loo sameeyo hala dhiirigeliyo marka waxaan leeyahay horu socod adigana maasha Allah soo dhaw hayo walaal qaali assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw muqaam channel magacaaga waalaikum salaam magacaaga maslax weeye waa ku dhawaay maslax su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxa waaye sidee u aragtaa gabadha isku tilmaantay quruxleeda Soomaaliya mise quruxleeda Galmudug waxaan leeyahay soo dhaw gabdho ka qurxan laakiin way jiraan laakiin aniga hanteeda waxa ay la qurxan inay macnaha hadafkeeda ay ka hadashaa migeeda ma ku raacsantaa afarta qof oo sunnah ii cabtay ay leedahay mise asmay propaganda weeyni markii runta la isku sheego arrin jirtay lamahan sun macnaha qofka loo cabayo kulli waa dareemayna qof waxa weeyaan karti iyo qurux leh marka haddayna meeshaas gaarsin wali may gaarin laakiin keep going alla inay gaari doonto laga yaabo hadda saa ku socoto maasha Allah maslax sidee wartaa sawiradan shanta qof tee ugu quruxsan dooran leed shantan gabdhood gabadhaan taageeraa lambar 1 TikTok gabadhaas ay la qurxan maasha Allah soo dhaw assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw muqaam channel magacaaga waxaa liidhaa nuur walaal waa dhawahay nuur qoftan isku tilmaantay quruxda Soomaaliya ama quruxleeda Soomaaliya sidee u aragtaa qoftaas macnaha beriyaan wax kale naaga dhigtay saaxiibkay waxay isku tilmaantay inay qurux badan tahay walaal saaxaw anaga inay soo shootireen waa bisug baan saaxaw soo wax kale ma fahantaade war meesha qurux mu ka saaxiibkay qoftaasna ma geed la isku wareerno saaxan fahant isdajna marka saaxib qofta may body leedo see amal meesha body mu ku haysabe war wax body meena kumanaana qurux badan isdajna qoftaas way daalantahay qofta waxay dhaad afar qof asun iyo cabta marro ma ku raacsan wax ka jira mal walaahi bila dooli ma sun waxa taas ayaa banaabe afar qof asun u cabtay walaa jini ma qabtaa macaan isdajna qof sun ku ay shantan qof oo sabradan iidan ay ku dhex jirtaa bal sidee yaad isleedahay qofkaas ugu quruxsan ayo والله رحم روس والله بلا رحم روس وقفتا وتاغيرسنا انا والله قفتا انا تاغير تماغا ميشا لو سو دير لجنكي والله بلا تينا لو سو دير حتى مو هيك حتى بسم الله ما شاء الله هويني مالك كليين بمحا ميشا سو ديرتين قوم قروحد ما شاء الله سو دو بركه ان شاء الله معلي اصحابتك داون والله سو دو اصحابتي لي سو دوي معنا walaalkiin wiilkiini soo dhaweey marka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku soo dhaw muqaam channel magaca maxamed allah walaalka mohan kuma moha sidee warta qofta isdhaaday maartay quruxlii Soomaaliya aniga waa amal walaani saxay horta wax la yeeshay waa qalad koode gabdho badan way jiraan ka qurux badan Soomaaliya oo ku noolin sida hadda ayuu qurux oo kale qofka dad qurux badan yahay isma baafiyo Soomaan laakiin iyo maxaa gabadhaas qurux iyada haweeney maalin kaliya waxay dhahay qofta afar qof asun iyo cabta afar qof asun u cabta leeda ma ku raacsan nisbeen way leeda saawo wala kaliya Soomaan taas mu maleynaa ajnabi xataa inuu sunu caawa Soomaalida iska dhaafay uma dhow xataa wala qurux ma sha Allah shan qof aad leedahay qofkaas ugu quruxsan ida maadaama Soomaali joogto gabdho badan waa garanaa Soomaali joogaan habi oo kala iska qaada lahay dadkaas qurux badan Soomaan uma dhow xataa okay sabradan yaa isleedahay qofkaas ugu quruxsan wallahi bila gabadhan raxma wataani raxma ruus quruxleedan ma sha Allah raxma ruus ka wata wallahi ayadana ku jirtaa sawirkiisa warta saxaawo fiiri Soomaalidu ina si galmarawiya qurux ciida haweeney maalin kaliin isku ma dhow wallahi